مرشحة مدحوينة كحيجين حسبية معارض ككلمية محمود حسن ساجن وحكوية بوهاي لباتن كن أو دولار أيو كوية بوهاي waxaana wakiil ka ahay adeer maxamuud xasan saacad saajin oo ii soo wakiishay inaan ku wareejiyo sheekh xasan oo gudda xaafadan ka mid ah lacag 20,000 oo doolar مرشحين مدحوينة كحيجين حسبية معارض ككلمية محمود حسن ساعد ساجن ayaa ballanqaadkii uu ka sameeyay halkani oo barxadda galbeedka Boorama isla markaana lagu ciiday munaasabadii ciida waxa ka qayb galay maayirka ayaa mid bixiyay wasiir saajin ayaa mid kale ku daray سلطان عبد الوهاب وزير عبد السلام ayaa xadadii kala isku qaatay saas goorta ku dhamaatay ilaahay khayr asiyo inaga farxiyeen Allah ka farxiyo waxa uu ka soo jawaabay saaka isla markaana waxa uu soo bixiyay 20,000 oo doolar waxana uu ku soo hagaajiyay isla markaana uu soo wakiishay Xuseen Cadnaan oo ku wareejiyay Sheekh Xasan Khayr Dirir oo ku hadlay afka gudida goobtani gacanta ku haysa waxaana hadalladoodu u dhignaayeen sidan waxaana wakiil ka ahay adeer maxamuud xasan saacad saajin oo ii soo wakiishay inaan ku wareejiyo sheekh xasan oo gudda xaafadan ka mid ah lacag 20,000 oo doolar maanta waxaan joognaa garoonkii weynaa ee ciida aan ku tukanaynay galbeedka magaalada Boorama oo muddo badan dadku ay ku tukanayeen ciidii dhaweyd halkan waxaan kaga yaboohnay in dadku ay ka qayb galaan garoonkaas iyo iibintiisa ay ka qayb galaan waxa kamid ahaa dadkii yaboohay lacagta ku yaboohay waxa kamid ahaa murashaxa madaxweyne ku-xigeen xisbiga mucaaradka kulmiye maxmuud xasan saajin wuxuu ku yaboohay 20,000 oo doolar ayuu ku yaboohay wuxuu kamid ahaa dadkii halka lacagaha ku yabooheen halka uga ducaynay isla markiiba maalintii ku xigtayba wuxuu bixiyay lacagtii 20,000 oo doolar Xuseen Cadnaan ayuu soo wakiishay Xuseenna uu nagu soo wareejiyay annagoo gudidiya waxa halkan ku dhan oo qayb kamid ay joogtaa gudidii xaafadda galbeedka magaaladan Boorama ee mas'uulka ka ahaa garoonkan waxaan ugu ducaynaynaa maxmuud xasan saajin ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxa uu niyada ku hayo oo khayrana ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu waafajiyo waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala halka uu ka bixiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr ugu bedelo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay subxaanahu wa ta'ala ubadkiisa iyo mustaqbalkiisana ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu toosiyo waxa uu niyada ku hayo ama hankiisa ah oo doonayo inuu higsadana in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu gaarsiiyo ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan uga baryaynaa cibaado iyo amal wanaagsan iyo khayr iyo khaatimo fiican iyo amal wanaagsan in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku nooleeyo ku dilo ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa waxa kale oo aan rajaynaynaa dadkii kale ee ku yaboohay lacagta ku yaboohay in iyaguna insha Allah ta'ala ay sida waxa weeyaan oo maxmuud xasan saajin oo soo dadaalay iyaguna ay soo dadaalaan insha Allah ta'ala inta kaleena maqlaysa codkayga maqlaysa muuqaalkan iyo garoonkan iyo ciidiiba indhooda ku arkayay dal iyo dibadba waxaan ka codsanaynaa inay garoonkan dhismihiisa iyo iibintiisa inay ka soo qayb galaan garoonka waxaan ugu tala galnay waa kow in ciidaha lagu tukado ayaan ugu tala galnay laba inay caruurta ku ciyaarto caruurtii xaafaduhu meel ay ku ciyaaraan male sida ayda loo eriyada ayga dhagax baa lagu tuuraa ilmihi yaraa markuu doono inuu ciyaaro ama uu mijabaxsado ama uu jimicsado kubad yar la soo baxo meel ay ku ciyaaraan male marka waa la eriyaa kolba jagay ku ciyaaraan oo laga eriyaa caruurteeniina si ay u heshaan meel ay ku ciyaaraan dadka waaweyn meel ay ku jimicsadaan oo ay ku wareegaan meel lagu nasto oo ummadda anfacda ummadaha lagala hadlo xataa lagu wacyi geliyo oo ummadda muxuu ahaa marka la rabo in wax lagala hadlo xafladaha lagu qabsado waxa soo dhan bay noo qabanaysaa marka barakallahu fiikum ilaahay darti wax ula baxa waa dan guud waa dan guud oo ummadda anfacaysa oo mustaqbalkeennii weey waa quruxdii magaalada ha laga qayb galo barakallahu fiikum nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ma naqasat sadaqatun min maalin sadaqadu maal ma nuqsaamiso waxaan ilaahay uga baryaynaa maxmuud xasan saajin in inta uu bixiyay boqol laabkeed ilaahay halka ugu bedelayo shaki kuma jira in ilaahay laba laab oo siinayo marka nabigeenu alayhi salaatu wasalaam baa sidaa yiri ma naqasat sadaqatun min maal sadaqadu maal ma nusqaamise way badisaa oo maalka ku bata oo ku barakooba marka barakallahu fiikum waxaan rajaynayaa jawaab wanaagsan warbaahinta Cishqi TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal